mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda ee gobolka Gabiley ayaa codkooda ku daray doodii dhawaanahanba ka taagneed cashuuraha dheeraadka ah ee ay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ku soo rogtay warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha dalka. Cashuurahani oo ku jira oo daraska miisaaniyad sanadeedka 2019 ee ay wasaaradda maaliyaddu horgeysay golaha wakiilada ayaa mas-uuliyiintani ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Gudoomiyaha xisbiga u ciiday gobolka Gabiley Cabdilaahi Daahir afayeenka xisbiga kulmiye ee gobolkaasi Maxamed Nuur Mooga Shabeel iyo siyaasi Axmed Maxamed Booq Axmed Kayse oo si gaar ah ugu waramay codka bariga Afrika ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan cashuurtan ay xukuumaddu ku soo rogtay warbaahinta. Mudane Cabdilaahi Daahir waxa uu ka soo horjeestay cashuurtaasi warbaahinta lagu soo rogay waxaanu xusay inaanay waqtigani habboonayn cashuuro dheeraad lagu soo rogo warbaahinta. inta dunida maanta magaciina laga yaqaan guud ahaanba caalamka waxa gaarsiiyo saxaafadda madaxa bannaan waxa lagu soo rogay wax aan aqli galahayn waana ciid qaadan karin annagu gabi ahaanba waxaanu ka soo horjeednaa cashuurta xadaafka ee lagu soo rogay saxaafadda madaxa bannaan waxaan leenahay haddii aan laga noqonin arrinkaas wuxuu noqonayaa arrin cawaaqib xumo dhasha ee dib ha loo eego. afayeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Maxamed Nuur Mooga Shabeel ayaa isagu qaba aragti ka duwan mas'uulka u cid waxaanu sax u arkaa in cashuurtan laga qaado warbaahinta. arrinta maxaan ku raadayay dhawaanahan la hadalhaye ee ah cashuuraha lagu soo rogayo saxaafadda si aynu ula jaan qaadno adduunyada aynu hiigsanayno maanta iyo halka la marayo wax cusub oo aan hore loo qaadin run ahaantii lama qaadayo waxaan la cashuurinaa adduunyada guudkeeda ma jiro wax boyaabo fara badan ba la cashuuraa sourceska la cashuuraa ayay ka mid yihiin markaasi saxaafaddu waana ilaha dhaqaaluhu ka soo baxo ila ka mid ah caalamka waxaan la cashuurin ma jiro hooyada tamaandhada yar iibinaysa waa la cashuurayo hooyada caanaha sida dameerka xaabada wadabada waa la cashuurayo wax alla wax ay hayaabani jirin ba waa la cashuuraya taasaa lagu maamulaa oo la ururiyay wadanka lagu maamulaa oo ciidanka qaranka la siiyaa cid walba marka waa source run ahaantii cashuurtaasi leedin ku soo rogay anigu kama soo horjeedo waan taageersanahay in leedin cashuuro laakiin midun baa meesha taalo de tugba taagtiib rogmadaaye in wax macquul ah leedin ku cashuurana meeshay taala. dhinaca kale siyaasi Axmed Maxamed Booq oo isla arintani uga waramay codka bariga Afrika ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaan maalmahan maqlay warbaahinta oo iyadana cashuurta lagu kordhiyay mudana madaxweyne warbaahinta qaranka waxa uu iftiimisaa waxyaabo fara badan dal saxaafad xoro waayna dalnimo ma noqonayso inaga maanta saxaafadda u baahan reer Soomaaliland waxaanu nahay qaran curdina oo adduunyada laga aqoonsan cidda kaliya ee fariinteena adduunyada gaarsiisa waa warbaahinta haddii la waayo waxay ka dhigan tahay in qarankani wuxuu heshiiska ku ahaa meesha ka baxay oo la doonin qarannimadii gaarka ah marka waxaan leenahay madaxweyne arrintaas saxaafadda xorta ha loo daayo shaqadeeda cashuurtaasina ma qaadi karayaan waa dad tabarucaad waa dad volunteer waa dad qarankan ugu shaqeeya hawlo badan iyo dhib badan oo ku gadaaman bay ku shaqeeyaan. Sakariya Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley.